wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland mudane Jamaal Jaamac Xamuud ayaa xarunta wasaaradda tababar uga furay macallimiinta madaarista Quraanka Kariimka ee gobolka Muruudsheeh agaasimaha waaxda horumarinta tacliinta iyo dacwadda ee wasaaradda diinta iyo waqaafta Sheekh Yaasiin Ibraahim Cabdiraxmaan ayaa faahfaahiyay ujeedada iyo muhiimadda uu leeyahay tababarkani waxaanu yiri wuxuu u baahan yahay wax ka saayidsan waxa aqoonta uu bartu leeyahay oo marka xirfadu ku gudbin lahaa ee dadka ku marka waxa weeyaan ku gaarsiin lahaa iyo xirfad ku saabsan dadkan marka wax barayo sidoo la dhaqmi lahaa xirfad ku saabsan maadadan uu dhigayo sidoo dadka u jeclaysiin lahaa waa arin aad iyo aad u muhiim ah waxa dareemaysa had iyo jeer culunta shariicadu waa qaybo waa funuun weeye culunta maadiguna waa funuun had iyo jeer ardaygu inuu jeclaado fanni kamid ah funuunta shariicada fiqiga oo kale ama xadiidka oo kale ama tafsiirka oo kale ama siirada nabiga oo kale calayhi salaatu wassalaam ama uu jeclaado maado kamid ah maadooyinka sida xisaabta oo kale ama fiisigiska oo kale waxa ka qayb weyn ka ah macallinka marka dhigaya hadduu macallinku yahay macallin mutafannin ah oo qaabka ardayda marka waxa loola dhaqmo dhaqankiisuna uu fiican yahay maskaxda qaabka soo loo geliyana marka waxa weeyaan wuxuu marka Ilaahay u yasiray soo marka aqliga qofka uu la hadlaayo Ilaahay u yasiray maadadan uu wado soo dadka u jeclaysiinadaha macallimiintu ay kala duwan yihiin macallin ardayga wuxuu tusaa oo calaa uu tusaa intan uu dhigayo suuradan iyo waxa weeye suurada ku xigta intaas laga yaabo ardaygu muuqaal ahaan inuu arko macallimiinta qaarkoodna waxay tusayaan ardaygu halka uu sii socdo quraankan hadduu dhameeyo waxa sugaayo quraankan dadkii soo xambaaray adduunyada soo mareystay ahaayeen quraanka ifka qofka quraanka xambaaray ifkiisu sidoo ay kaanayo aakhiradiisu caynkay noqonayso quraanka waxyaalaha marka quraanku ka kooban yahay culunta faraha badan ee kala duwan ee quraanka ku duugan macallin warkiisu waa kaamarka macallinna waxa laga yaabaa ka baxiyo casharkii ma soo qaybtay halka fadhiiso iyo waxa weey arrintu sida ay noqoto marka macallinku inuu helo xirfadan marka quraanka dadka lagu jeclaysiinay laguna gudbinayo inuu helo marka wax badan oo aqoontiisa marka kordhinayo oo siyaadinaya runtii aad iyo aad ugu baahan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqaafta oo kulankan soo gabagabeeyay ayaa kula dardaarmay macallimiinta madaarista quraanka inay halkii ay joogeen ka sii kordhiyaan aqoontooda iyo xirfadda macallinimada isla markaana aqoonta ay barteen ku dabaqaan madaarista ay ka yimaadeen berigii hore marka waxa loo fahansanayn diintan la fahansanayn laakiin maanta waxay noqotay in diinta lagu soo cararo diintii la fahmo xiisadii diiniga ha la sugo la dhamaysto maanta maraysaa ilaahay waxa ka baryayaa in ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro annana waxaan idin leenahay insha Allah wasaaraddu idin garab taagan tahay Allah idinkana waxaan idin kula dardaarmaynaa oo dardaaranku maanta yahay tii halkii hore waa joogteen ka sii kordhiya insha Allah ka sii kordhiya waxa la faraska dhingada waxa loogu dhuftaa ha dheereeyo waa dhiirigelin bay wasaaraddu hadda hawshan ay idin qabatay waa dhiirigelin miisaanka xasanaadka idin Allah idin ku daro aad baan idin salaamaya khayr badan baan idin rajeenayaa Allah idin barkayo dhamaantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh